رمبا في عن بينبا رفعا راحنا مطبالي waxaan leeyahay marka kelmadda aan idinka wakiilka idinkaga ahaa run sheeg waa ceeb sheeg baa leeyahay yani runtii markii la sheego in badan oo waxa xun la tooslaayeen yay la qalloocanta markaas uu ka horgaaraya asagoo aan dhagan la qabta lahayn oo ay la quman tahay mid uu ku socda waxa loo baahan yahay marka tanaa run ah tanaa wanaagsan tanaanu ku midoobayna tanaan walbaheenu ku badbaadin karnaa sidaan horumarkeena leh inaynu niraano inaynu meel uga soo wada jeedno tagi maysaan ayuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam inaad wanaag isu sheegtaan xumana iska reebtaan haddii arrintaasi ay dhici weydo waxaa dhici kara haddii la waayo arrintaas waxaa dhici kara inuu ilaahay ciqaab idinku soo dejiyo ama dhexdiina ciqaab uu ka soo saaro subxaanahu wa tacaala kabacdina aad rabbi baridaan ood gacmaha inta cirka u taagtaan ilaahow ciqaabka naga korqaad markaad ciqaabka naga korqaad leedihiin dhibkii ciqaabkan sababay ayaad weli gacmaha kula jirtiin falaa yustajaabu lakum la idinka aqbali maayo ayuu leeyahay nabigu sal alla alay wasalam imisaan ducaynaa marka hadda bal dib aa la isku fiiriyo imisaan rabbi barinaa subxaana wa tacaala fitanun fawqa fitan niman yahow soomaaliyeedo waxa weeye waxaa ina sugaya halgan ummadnimaa ina sugi oo fikri ah halgan midnimo oo awood ah halgannimo oo isu tag ah يعني waxa weeye ummaddu haday waxda weydo hadii ay bulsho midaysan weydo haday aqliga ka midoobi weydo haday fikirka ka midoobi weydo intaynu reebel isku haysanay intaynu isu haynay gobol hebel meel hebla anaale ya dalkeeni la wareegay waa la qabsaday dalkeeni marka raganimo way dhamaatay dadnimana way dhamaatay waxa weeye marka bani aadam haddii masayrkii qoysnimo ka dhimato masayrkii diineed uu ka dhinto masayrkii wadan uu ka dhinto masayrkii qowmiyadnimo ay ka dhimato bani aadamkaasi miduu jira umalay mahayo inaynu odhan waa waxaa weeye maanta waxaa laynagu sheegayaa adduunka inaynu qaran nahay inaynu ummad jiran nahay yaynu isu sheegaynaa waxyaabaha marka dhibaatada ah ee haysta waxa kamid ah meel wax laga bilaabo la garan laayahay meel wax laga bilaabo ayaa la garan laayahay qofku su'aalo ku weydiin karo waxa kamid ah marka tiraa warniyo wuxuu ku leeyahay Soomaalide waa la kala tagay waa bahalkii marka qofku wuxuu ka fikirayaa kaligiis ayuu wuxuu rabaa inuu ummadoo dhan problemkeedii iyo maaragtay mashaakilkii haystay oo dhan inuu xalliyo waxa loo baahan yahay aqli wuxuuna tusayaa in loo baahan yahay qofku wuxuu qaban karo isagu inuu fahmo hal tusaale rabaa in laga soo qaato wali ma aragteen roob soo da'ay geed caleen biyo ka soo da'ay oo dhagax inta dalooliye ka hoos baxay biyan tis meesha ugu yaraan dhadhaaba waa dalooliye waa ka dhex baxaan Soomaa laba arrimood ay jirta marka number 1 waa inaysan wixii ka daalayn oo ay meesha ku socdaan iyo in directionka ay ku socdaan laga bedelin waxyaabaha isweydiinta waxa marka hadii dhibic roob ah ay dhagax ama birdu leelisay dadku soo wax ma qaban karaan waxaan leenahay marka intaas waxaan ku cabiraynaa suugaan deeqdii ilaahay iyo ogaado daruuraha markuu roobku soo da'o dhibco soo dislayo daciif oo itaal daran hadday daa'imaan oo aan khadkooda laga duwin daqiiqadana lagu xiran birta inay dalooshaan ka dusaan dhadhaabaha marna intay isdoontaan daad rugmadeen noqdaan oo dugubada culculus iyo wax kasta dildiliyaan tugagii iyo webiyada waa idinka arkay macnaha dhibicdii markay dhibic kale u tagtay marka koow maxay samaysay hadday doonto waxay jibin kartaa dhadhaab haddii kalena dhibica markay isku tagaan waxay noqon karaan durdur haddana waxay noqon karaan tog haddana waxay noqon karaan bad yaa hor istaagi kara tsunamidii ka dhacday Japan magaalo la wada Soomaali waxaas waa dhibco isku tagay oo roob ah wax kale ma aha oo bad noqday oo bahalkii noqday il jinni kuma dhici karta yiraahdeen qof inta qof kale intuu ilaystay uusan albaabkiisa jabin markaas kadib uusan il jinni aysan ku dhicin waxay yiraahdeen il marday il inta qof aysan ku dhicin il jinni kuma dhici karto marka ujeedadu waxay tahay haddii adigu aad albaabkaaga xirato cadow albaabka soo jabi karaa waa koobma laakiin albaabkaagu hadduu furan yahay macaljiirka iyo isnaayolka iyo quraanyada iyo wax walba iska soo galaya marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in dadku ay fahmaan inay iskala dagaalaan cudurrada yar yarka ah
oo diintoodii xoraha iyo bahallada dhuuxa ka galan noqday dadnimadoodiina la degay inay insha allahu tacaala iska jiraan runtana la isku sheego runtana lagu dhaqmo in runtaa loo gaadho waxay aada ugu habboon tahay in caadifadda aada loo yareeyo oo aada waxa adigu aada jeceshahay maskaxdaada laga saaro laakiin waxa runtu tahay ee loo baahan yahay aada abaarto oo aada ka saarto adigu maxaad doonaysaa adigu maxaad qabtaa reerkiinu muxuu qabaa dadkiinu maxay qabaan fariiqadaada ama kooxdaadu maxay qabtaa maxaad jeceshihiin waxaasoo dhan intaad dhinac iska dhigto inaad tidhaahdo maxaad dadku u baahan yahay maxaad adigu u baahantay maxaa ka simantihin waa maxay baahida dhabtaa ee loo baahan yahay waxay tahay waxaa kale oo runtu ka bilaabantaa marka run la doonaya in la gaadho waxay ka bilaabantaa inaad adigu iska bilowdo ood adigu runta isu sheegto kabacdina ka kugu xiga u sheegto ilaa marka dambe deegaanka aad ku nooshahay aada runta ku ballaadhiso ood wada gaadhsiiso markaana aada u gudubto kuwa kale